way adag tahay inaynu qaadano go'aan markaynu ka murugsanahay arrin. Waxaa jira markii aad ka fikiraysid arrintaas in aad labanlabaynayso. Naftaada waxay ku dhehaysaa samee waxyaabahaas xun. Qalbigaagana wuxuu ku dhahayaa jooji. Mar walibana naftaada waxay isku dayaysaa inay ka qaalib noqoto qalbigaaga. Balse go'aanka saxda ah waxaa qaata qalbiga. Mar waliba isku day inaad dhegeysato naftaada, kana jawaab celisid hadalka uu ku leeyahay qalbigaaga. Isku day inaad carbiso naftaada sababtoo ah barashada xirfadda carbinta nafta waxay qayb weyn ka qaadataa inaad guulaysato. Naftaada mar walba waxay ku fikirtaa waxyaabaha fudud ee macquulka ah, balse dabaqada sare ee guusha dad badani ma joogaan. Wayna adag tahay inay gudubto naftaada, balse qalbigaaga wuxuu ku tusayaa midaas. Macallin ayaa wuxuu yiri haddii aad rajaynaysid 100%, waxaad helaysaa 75%. Balse haddii aad rajaynaysid imtixaanka waraaqada inaad ka keento 25%, waxaad keenaysaa eber. Taasina waa mid la og yahay. Mar walba waxaad rajaysaa hankaaga meesha ugu sareyso. Markii aad rajaynaysid wax aad u sareeya, waxaa sahlanaanaysa inaad heshid. Waxaa jira dad ku soo bira nolosheena waan kagana taga si fudud. Markaynu u baahannahay way naga tagaan, markaynu doonayno way noo yimaadaan. Maxaynu ku magacawnaa dadkaas? Waxaa jira dad noocaas oo kale iskuna dayaya inay burburiyaan noloshaada. Balse daawada jawaabtaada commentiga hoose noogu soo reeb. Dadka markii aad reebtid kaa taga, markii aad rabinna ku yimaada. Maxaynu ku magacawnaa? Fadlan channelka haddaa ku cusub tahay subscribe saar gambaleelka riix. Sidoo kale muuqaalka like taa ka ilaawin. Waxay noo tahay dhiirigelin. Commentiyada quruxda badan ee aad noo soo qortaan waad ku mahadsantihiin. Asxaabtiina la wadaaga si ay muuqaalkani wax uga faa'iidaan. Waa ku mahadsantahay saaxiib daawashada muuqaalka.